السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawaneysaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay saaka waa Sabti taariikhduna waxay ku beegan tahay 26 bisha Abriil sanadka 2025 waa barnaamijkeeni ugu horeeyay ee subaxnimo. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo gudbin doonaa macluumaad aad u xiiso badan. waxa aynu ka hadli doonaa Gaza xaaladeeda oo warar cusub ay ka soo kordheen. Trump oo la sheegay inuu u ambabaxay xalayto wadanka Talyaaniga. haddaba ujeedada socdaalkiisu maxay tahay barnaamijkan ku faahfaahin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wafdi ka socda Hamas oo isaguna maanta wada hadallo kula qaadanaya iyagoo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Qaahira mas'uuliyiinta wadanka Masaarida si markaa looga arinsado arrin ku saabsan wada hadallada in ay sii socon karaan iyo in kale ee maxaabiista la isku dhaafsanayo. waxaa soo kale barnaamijkan idinkugu hayaa duqeymo ka dhacay Yemen iyadoo la sheegay in gantaal ay Yemen riday iyaduna ay Israa'iiliyiintu sheegeen in ay markaa ka hortageen. wadahadallada maanta oo Sabti furmaya oo u dhexmari doona Iran iyo Mareykanka ayaa durbaba waxaa la sheegayaa in ay yihiin wadahadallo xasaasi ah oo xaaladoodu ay aad u adag tahay. haddaba tafaasiisha waxa laga yiri intaanu wadahadalladu furmin iyo waxa laga qoray ayaan iyana barnaamijka idinkula wadaagi doonaa. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena subaxnimo ee saaka idinkugu soo gudbin doonaa. inta aan ku jirnana haddii warar cusub ay soo kordhaan waan idinla socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii subaxnimo. saakay waa Sabti. barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaaladaha wadanka Falastiin gaar ahaan magaalada Gaza waxaa ka jira ayaynu barnaamijka marka hore kaga hadli doonaa. haddaba sidaanu la soconay shalay iyo daraad waxaa ka dhacay Gaza dagaalo aad u qaraar oo dhex maray muqaawamada iyo ciidanka Israa'iil ee duulaanka ku haya magaaladaas. haddaba waxaa la sheegay labada maalmood in khasaare xoog leh uu soo gaaray ciidanka Israa'iil oo markaa ay sheegeen warbaahintoodu inta la malaynayo in ka badan in laga yaabo in ciidanka khasaarihiisa uu soo gaaray. haddaba marka inta aynu kaga gudubno oo barnaamijyadeedii hore xalay ilaa shalay galab ayaynu ku faahfaahinaynay dagaalka iyo weliba xaaladdu sida ay tahay. balse saakay maxaa ka cusub Gaza? saakay waxaa qayladhaan wada hay-adihii ka shaqaynayay gurmadka oo ay ugu horeyso qaramada midoobay. waxay leeyihiin dadka reer Gaza waxay bilaabeen inay markaa gaajo iyo dhibaato dawo la-aan oo aad u xun ay dareemaan oo markaa dhibaatadu ay xoogaysatay. haddaba dowladaha qaar waxay ku baaqayaan in gargaarka iyo aan la isku xirin arrimaha siyaasadda ee dagaalka waxaana ka mid ah dowladda Canada. haddaba iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin ayaa madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump xalayto waxa uu ka ambabaxay magaalada Washington isagoo ku sii jeeda wadanka Talyaaniga oo uu maanta tagi doono. intaanu ka dhoofin oo san diyaaradda raacin ayuu la hadlay wariyaasha waxaana wax laga weydiiyey arrinta Gaza. waxa uu sheegay in uu la hadlay ninka la yiraahdo Netanyahu una u sheegay Mareykanku inay doonayaan in dawo iyo raashin la geliyo Gaza oo xaaladdu markaa ay aad u adag tahay. haddaba arrinkaa waanu u sheegnay ayuu yiri, laakiin sida ay markaa Netanyahu iyo kooxdiisu u fulin doonaan arrinkaa lama yaqaana la leeyahay. haddaba Trump iyo wafdigiisa ayaa la sheegay inay markaa kusii jeedaan oo wadanka Talyaaniga ay maanta tegi doonaan iyagoo halkaa kaga qaybgali doona aaska maanta loo samayn doono baadiriga ugu weyn diinta Kirishtaanka madhabta Katoliga oo markaa isagu dhowaan geeriyooday oo markaa aaskiisa uu ka qaybgalayo. wafuud ballaaran oo markaa adduunka ka kala tegaysa ayaa halkaa isugu tegi doonta si ay baadiriga u sabootiyaan. waa tahay marka dhanka kalena waxaa la sheegayaa in wafdi ka socda Hamas ay shalay gelinkii dambe gaareen magaalada Qaahira. wafdigan waxaa hogaaminaya ninka la yiraahdo Khaliil al-Hayya oo ku magacaaban madaxa Gaza ama ninka madaxda ka ah Gaza ee Hamas u qaabilsan. ninka ayaa markaa wada hadallada halkaa u aaday oo maanta waxay wada hadal la qaadan doonaan saacadaha soo socda mas-uuliyiinta Masaarida iyagoo kala hadli doona hindisaha cusub
iyo qaabka loo wajihi karo in markaa maxaabiista la isdhaafsado. haddaba sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa sheegay wax walba oo dhaca inaan wadahadalka marnaba lagu soo qaadi karin oo aysan iyaguna aqbali doonin in hubka ay dhigaan muqaawamada. waxa uu sheegay inta Israa'iil ay dhul Falastiina gumaysanayso in muqaawamadu aanay hubkooda dhigi doonin. haddaba fariintan ayay iska sii hormariyeen qoladii xamaas kadib markii dhowaan hindisihii masaaridu ay keentay lagu soo daray qodobkan oo ah in hubka ay dhigaan xamaas oo hore ay u diideen. haddana macnaheedu waxaa lagu tilmaamay inaynu markaa arrinkaa haddii uu yahay hindisuhu aanan annagu shaqo ku lahayn, hubkeenana aanan dhigi doonin sida ay yidhaahdeen. waa tahay qodobka magaalada Gaza iyo xaaladaheeda, bal haddii wax gurmada ay markaa helaan oo gargaara waa arki doonaa. inkastoo Netanyahu cidda kaliya uu warka ka maqlo ay tahay Trumpna uu yiri waa la geynayaa gargaarka. haddaba waa arki doonaa bal maalmaha soo socda wax gurmada oo markaa dadka loo fidiyo inay dhacaan in kale. qodobka kale ee barnaamijka aynu ku faahfaahinayno wuxuu yahay saaki waa sabti, yahuudi way isballansatay. waxay isku ballansadeen mudaharaadyo waaweyn inay dhigaan. mudaharaadyada waxay ka dhacayaan meelo kala duwan. isla aroortii saakay ayayba dadka soo baxeen, waxaana ay kasoo horjeedaan dagaalka ka soconaya Gaza. waxay doonayaan in heshiis lagu dhameeyo maxaabiista la isdhaafsado, dagaalkana la joojiyo, dhibaatada dadka rayidka ah lagu hayo Gaza inay joogsato. haddaba waa markii ugu horreysa la leeyahay mudaharaadayaal tiradoodu intaa la eg tahay saaka isu soo baxay iyagoo watay sida la leeyahay sawirro caruur markaa lagu dhibaateeyey ama lagu dilay marinka Gaza sawiradooda, iyagoo dalbanaya in la joojiyo dhibaatada iyo xasuuqa laga geysanayo halkaas. arrinka ayaa wuxuu leeyahay mid aad ugu cusub Israa'iiliyiinta gudahooda, oo markaa mudaharaadyadii hore aan lagu arki jirin arrimo noocan oo kala ah oo dadka markaa ay ka gagaban jireen. laakiin hadda si toos ah ayay mudaharaadayaashu sawirada